siirada suubanaha sallallahu alayhi wa sallam. qaybta afaraad, qisadii Baxiira. markuu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam 12 sano jiray ayaa adeerkiisa Abi Taalib iyo rag kale oo Quraysh ka mid ah ay safar u kicintameen dhinacaas Shaam. wuxuu markaa rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ka codsaday adeerkiisa inuu raaco, adeerkiisana wuu ka yeelay. dabadeed markuu safarkii u baxay wuxuu sii maray meel la yiraahdo Busra oo ay safarada Quraysh Shaam u socda sii mari jireen. uuna degnaanin raahib suufi ahaa oo Baxiira la oran jiray, haystana diinta Masiixiga, cilmina u lahaa waxyaabihii uu Ilaahay ku sheegay Towraad iyo Injiil. ninkaas raahibka ah safarada Quraysheed way agmar jireen, danna kama gali jirin. laakiin maanta waxa uu arkay calaamadooyin ku saabsan wiilkan yar oo safarka la socda. calaamadooyinkaas oo kutubkii hore lagu sheegay. markaas ayuu ninkii martiqaad u sameeyay safarkii oo dhan. waa ay la yaabeen, waxayna yiraahdeen weligeena waa ku agmari jirnay, martiqaadna nooma aadan samayn jirin, ee maanta maxaa jira? wuxuu yiri waa sax, laakiin martib baad tihiin imaada. markii uu yimaadeen wuxuu ku yiri ma cid baad ka soo tagteen? waxay ku jawaabeen yar ayaanu rarkii uga soo tagnay. Baxiira ujeedkiisa wuxuu ahaa wiilka yar, markaasuu ku yiri u yeera gobanka. markii la qadeeyay ayuu Baxiira su'aal weydiiyay Abu Taalib oo uu ku yiri wiilkan maxaad u tahay? wuxuuna ugu jawaabay aabe ayaan u ahay. Baxiira waxa uu yiri suurtagal ma ahayna wiilkan aabihiisu nool yahay, ee maxaad u tahay? Abu Taalib wuxuu yiri adeer baan u ahay. intaa kadib Baxiira wiilkii ayuu gees ula baxay, wuxuuna weydiiyay su'aalo. ugu dambeyntii wuxuu ku arkay qaatumkii nabinimada oo nabiga sallallahu alayhi wa sallam garbihiisa dhexdiisa ku yaalay. Baxiira wuxuu ku yiri Abi Taalib, wiilkan arrin weyn ayuu yeelan doonaa. waxaan aniga ka fahmayna hadday nimanka Yahuudi ka fahmaan waa ay dili doonaan, ee ku celi magaaladiisii kana ilaali Yahuuda. Abi Taalib markii uu alaabtiisii ka soo gatay si degdeg ah ayuu ugu soo laabtay Makka. markaa kadibna wuxuu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam Makka ka baxay hal mar oo kale ilaa hijrada laga gaaray. rasuulka sallallahu alayhi wa sallam markuu soo barbaarayba wuxuu bilaabay inuu buuraha Makka ariga ku ilaaliyo. siirada suubanaha waa barnaamij maalinle ah oo aan aalaaba ku soo bandhigi doono siirada nebiga sallallahu alayhi wa sallam. kala sooc maalmaha Ramadaanka 4 galabnimo Rashka Production YouTube iyo anigoo ah Ahmed Jubba.